waxaan jeclaan lahaa inaan ku celceliyo qayladhaankayga ku saabsan warbixinta taas oo ah Mareykanku inuu diyaarinayo inuu Qudus u aqoonsado caasimadda Israa'iil. Qudus mudane Trump, Qudus waa diilinta guduudan ee Islaamka. inta dhaawaca dadka Falastiin dhiigga laga daadinayo uu sii soconayo oo xadgudubyada xuquuqda silcinta iyo weerarrada ay sii socdaan in la qaado tallaabadan lagu taageerayo Israa'iil. arrintani kaliya xadgudub kuma aha heshiisyada caalamiga laakiin waxay kicinaysaa dareenka iyo shucuurta insaaniyadda. haddaanu nahay madaxda ururada iskaashiga Islaamka, dhibaatadan si go'aan cad ah baanu dabagal ugu samayn doonaa. haddiiba tallaabada noocana ay qaadeen, waxaannu isugu imaan doonaa shir madaxda ururada iskaashiga Islaamka magaalada Istanbul 5 casho ilaa 10 casho gudahood. arrintaana waxaan ka qaadi doonaa tallaabo dheeraada. waxaan abaabuli doonaa dhammaan dalalka Islaamka, waxaanuna dhigi doonaa dhacdo aad u weyn. waanu mahad celinayaa hogaamiyayaasha kulanka, waayo dhacdadani maaha mid caadi ah. dowladda Mareykanku ma waxay weyday shaqo kale ay qabsato? daacish miyay ka soo dhammaadeen? ma intanuunbaa u hadhsanayd? Netanyahu waxa uu awoodi la'yahay inuu soo afjaro dhibaatooyinka ka dhacaya gudaha Israa'iil. si aan gabasho lahayn ayaanu sii wadi doonaa dagaalkeenna ku aadan arrintan, xataa haddii ayna gaadhsiinayso inaan xiriirrada diblomaasiyadeed u jarno Israa'iil.